xiisad dagaal ayaa saaka laga soo sheegayaa in ay ka taagan tahay deegaanka Bangeeley ee u dhaxeeya magaalooyinka Cadaado iyo Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Arrintani ayaana sidoo kale tan ka dambeysay kadib markii dhawaan laba maleeshiyo beeleed oo dagaal ku dhexmaray deegaanada Bangeeley iyo waliba Mirxanley, iyadoona halkaasi la kala dhaxdhigay ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya si ay u damiyaan xiisada ka taagan deegaankaasi. Sababta keentay xiisadani ayaa waxa lagu sheegay inay tahay kadib markii dhawaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee la geeyay deegaanka Bangeeley ay isaga soo baxeen, taasina ay keentay in dhaqdhaqaaq ay sameeyaan labada maleeshiyo beeleed. Ma jiraan wali wax war ah oo ka soo baxay maamulada magaalooyinka Cadaado iyo Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Wixii faahfaahin ah ka soo baxa dagaalkaasina waxaan idinkugu soo gudbin doonaa muuqaaladeena xiga.